السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داودياش قيمة يقايا مدن كسر دواد سجل تيفي داودي اللي ومالنا خميس تاريخ نكون بيجان تاي لحية توان كابيش السيارات لبض كنا تاني كودا داودي اللي واحد نواب برتين مالي اللي بيو خميس إنه نديس وجود من الرأي قد دوينها رأي قاسو كوادن حد بوحي مركز تاجن فضلا هدية تاي مركي كورسيا صوب وقت سجل تيفي وعن كورة جينا هنا نوصو بيرتو أو عاد نوصو بوقته بوجا إنه كلين هاي تويتر كا يوتيوب كا يفيسبوك وأتكلم عن سنتين سيدة قروح ضبضان ياد مرة اللي بوقف على لسان مقالة أن نسوق لنا بوجينا سؤال شيء ما أنت ويدين دونه قار كم إذا بالشدة كل قناة السوق وين مقالة بصوصية واحد هاي مدحونا الدولة الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماتشو وشغال شوجين كسمية رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن محمد حسين روبلي هذا مقعد بلابية كسروا سجل تي في وكسروا اس ان تي في ولا وانا سلام يا يدي دمان وبهذا تي في ودنبا أنا أقول استعال عيسى استعال عيسى سؤال شيء ما صدقت ويدين يا واحد هاي سيدي رأيهان وأركتا شغل جوجين تلقوا سمير رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ولا لو وحنا وأركها وصح مدحوينها ذكرتها وقاضي يقعنك وقاتي وصح واي شغل رئيس الوزراء الله إن ماي موسى قبن شغلي سواء الجارسين بهاي شغلي لود إن ماينا موسى كل دقائق de ra'iisul wasaaraha anaga waxa laga sugayay inuu doorasho u dhaqaaqo ma garatay Soomaaliyana waxa laga sugayay inay dhisanto israacdo madaxweynaha aan ku xisaabtamayna kaliya oo soo mara Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo markii laga soo koobay siyaad barre shaqada ra'iisul wasaaraha laga sugayay maxay ahayd waxa laga sugayay waxa doorashada inuu qabto oo u wada dhaco oo qada galo marka waxyaabaha hadda faraha la galay oo mamnuuca ka ah ra'iisul wasaaraha aad ka tamanayso maxay waxa weeye saraakiisha uu casilayo golaha wasiirada uu shaandhaynayo wax bedelayo de wuxuu noo hayo iyo wuxuu matalaadu matalayo rooblo kuma kalsooni matalaadna nooma hayo hadaanu shacabka mataliyada laha anahay saasuuna nooga fasaxayay de xarunta habanayo qofkii matali laha anaga keensanayna shacabkaana keensanayay waad ku maasantahay sida quruxda badan ee ra'yiga noo la wadaagtay adoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhaw sagal TV وادوهاي مقعد ومحمد عبد السعيد محمد عبد السعيد رأيهان سيداد وأركتا شغل جوجينتا lagu sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa ku saxayahay madaxweynuhu oo shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaare waa la soo daayay mar ku sameeyay sababtoo ah ra'iisul wasaare waxa loo diray doorashadii ma qabane hawlka ku dhaqaaqay aan loo idman marka waxa dhigi kara go'aanka madaxweynuhu qaatay waa go'aan sax ah waayahay hawlaha loo igmaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka gaabiyay maxaa kamid ah waxa kamid ah wuxuu ku soo noqdayeen booliisi wasiirada xilka qaad ku sameeyo isagoo walba xil gaarsiin ahaa oo wuxuu sameeyay oo kale taliya oo xilka qaadi kara xilka qaaday kiis wuxuu siyaasadeeyay oo kale ahaa gabadhii la dilay Ekraan Taaliil marka wuxuu ku kacayeen waxyaabo badan oo ka hor imaanaya shaqadiisa ويا محمد مركا la gudboon ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama lagu joojiyay shaqo joojin wadanka uu waxa wadanka ku tanaasulo oo laga baahan yahay wax kale oo looga baahan yahay ma jiraan wadanka uma baahna qas iyo foodo wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo wadanku inuu hore u socdo waa ku maasantay sida qurux badan ee ra'yiga noo wadaagtay adoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhaw sagal TV aad baan ugu dhawaysay magaciigana waa aadan maxamed cabdiraxmaan aadan maxamed cabdiraxmaan oo ra'yahan adiga sidee bay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble aad baan u soo dhaweynay shaqo joojinta lagu sameeyay waxaan leeyahay mayba taageeray horta shaqo joojinta laga sameeyay ra'iisul wasaaraha aan taageeray sababtoo ay shaqo usan lahayna qobadi markaas li ajli shamay balaha ani shaqada lagu jooji wala baahniyo marka mayba lana eedan taageerana shaqo joojinta la sameeyay markoodii mar labaad madaxweynaha eedan ka mahadsanyisu shaqo joojinta kan soo biyay eedan ka taageeran waayahay shaqada laga rabay inuu loo igmaday oo rabay inuu qabto shaqadaas maxay ahayd oo ka gaabiyay shaqo uusan lahayn buu galay shaqada uu soo galay waxay tahay waxa asaga kala bedel looga targalin asaga waxa looga targalay jadwalka nidaamka doorashooyinka in ba looga targalay jadwalkiina uu ka baxay jadwalkaas haduu ka baxayna maxaa meesha yaala adoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhaw sagal TV حسن محمد آدم عبدي
xasanow ra'yi ahaan sidee bay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ku soo biiray shaqo joojinta tuhum may wayda la qof kasta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha may la fadaa intii shaqeeyaan madaxweynaha may baangata ra'iisul wasaaraha intii sharafo ra'iisul may baata usin intii madaxweynaha sharafo oo lamaadiyo safayl in shaqeeyaan way baaya adan koran oo lamaad isgaarona digaalka dhaxday digaalka ma adan koran dad baa ka dhamadee ma dad ma ka dhadaaw way baayin antii qof kasta badan koran safayl ka dhamayaan arantiyo maxaad markaa hadda baaq ahaan u jeedinaysaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ma baan jeediyaan koran antii shaqo kasta safayl ka dhamayaan way baan daraadan koran antii dhamaanba wadankii nabad ka dhagaan magaca ku bilaabaya ku soo dhaw Sagal TV aadan maxamed cali muqtaar assalaamu alaykum warahmatullahi aadan oo adigoo kaamiradan eegaya ra'yi ahaan sidee bay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ahsan way qaldan waa la joojiyaa kulli wax fiican ilaaha kan وصدق marka maxay tahay sababaha looga joojiyay ra'iisul wasaaraha baad isleeda sidii hooshii soo gudu waayday shaqooyinka loo baahnaa ee loo igmada ra'iisul wasaaraha oo shaqada uu qabsan waayay maxay yihiin shacabka waa maaragtay wax u qabto nabad laga dhiga la rabaa wixii nabad khayr wada ilaaha keen wada insha Allah magaca ku bilaabaya ku soo dhaw Sagal TV sax waa ku dhawahay magaca waa Maxamed Cabdullaahi Axmed Dr. Filipo fikradiina way idin ka dhaan Dr. Filipo waa maasan tahay ra'yi ahaan sidee ay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ruuxantii lagu sameeyay shaqo joojinta lagu sameeyay qofka binaanka hadii shaqo loo idmado oo shaqadii sidii ay tahay u qaban waayo dadkii xilka u dhiibtay waxay go'aan ka gaarayaan inay xilka ka joojiyaan ilaa inta laga gaariyo go'aan muuqdo oo lagu soo celin karo xilkiisa shaqada loo igmada ra'iisul wasaaraha oo ka gaabiyay maxaa weeye shaqadaas shaqada loo xibsay waa garanaysaa inay qof walba shaqada loo soo garanaya shaqada loo soo waa inuu ka hadla doorashadaas sida u dhici lahayd sidoo horumarin lahaa soo dadka doorashada ku jira u qancin lahaa laakiin hadaad gashid waxaan dantaada ahayn ama shaqadaada ahayn aad gashid oo shaqo kale lagu dirsaday maanta la yiri in halkaas ka shaqeey goobta nagad aad tiraad goobta ka shaqeeyay meel kale ka shaqeeysid waa shaqo joojin Soomaa ma la isdhigi karaa madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka gaabiyay shaqooyinka loo igmado ee kamid yihiin shaqooyinka dardargelinta doorashooyinka ruuxantii qofka haduu ka gaabiyo shaqadiisa jawaab aragtay qof haduu shaqadiisa haysto legal yahay inna kama jijiso shaqada ma kolba wuxuu sameeyay khaladaadku sameeyay darteed ba shaqadiisa lagu jijiyo Soomaa adoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhaw Sagal TV waa ku dhawaay Sagal TV magacaygu waa Ibrahim Ismaaciil Ducaale oo ku nool magaalada Boosaaso Ibrahim ra'yi ahaan sidee bay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble haddii aan fikirkeyga ka dhibto shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxaan isdhigi karaa waa mid ku haboonayd sharciga dastuurka qaabilsan laana ra'iisul wasaaraha wax loo doortay ma ahayn inuu ka hadlo macnii dana uu salaan inuu faraha la galo ra'iisul wasaaruhu dana uu salaan faraha la galay sidaa darteed marka waxaan leeyahay waxa loo doortay inuu ka shaqeeyo doorashada iyo howlaheeda hadda se howluhu ku jira ma howlo macni ku munaasaba waxa ka dhawaajisay inuu ra'iisul wasaaruhu faraha la galay dana aan loo igman marka maxaa kamid ah waxyaabahaas danaha waxa kamid ah ra'iisul wasaaruhu inuu xil qaadis ku sameeyo taliyaha hay'adda nisa magaca ku bilaabaya ku soo dhaw Sagal TV ku soo dhawahay maxay TV Sagal TV magacaygu Awaan Axmed Muumin Axmed Muumin oo adoo maasan ra'yi ahaan sidee bay kula tahay shaqo joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble horta maxay ahayd ra'iisul wasaaraha looga horeyn Burkina tagay waxay ahayd waxyaalaha uu sameeyay waa isku qof yahay ma garas marka ra'iisul markuu Kenya tagay maxaa ku soo siyaaday horta waxyaalo badan baa ku siyaaday waji aan lagu aqoon hore lagu baran buu la yimid ma garas soo maxay ahayd xogaa inaad aragto maxnaha hadii isagoo sameynaya doofur badan yaani sharciga dastuurka midna kuma jiro macnaha inuu isagu wax qaadi karo xilligan xil la qaadana maaha marka wuxuu sameeyay maxay ahayd
afaraha fiirihisi ahayn buu galay maaha salaajigeed macnaha way ku haboontahay maanta in xilka laga qaado maxaa talahaan u soo jeedinaysaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya aniga ray ahaan waxaan leeyahay horta ra'iisul wasaare wadanku wuxuu leeyahay sharci kala dambeyn nin walba shaqo gaar u leeyahay Soomaa waxa munaasib qof inuu wixii isaga macna ku aadan shaqaysa xil saaran inuu gutaa laakiin ma ahayn isagoo afara oo lahayn inuu fargasho sidoo inuu xil qaado kale ama uu meel xayiraad saaro taas markay waxaan leeyahay taa waxa u xil saaran madaxweynaha taas kale waa awoodda madaxweynaha marka waxaan leeyahay adigu awoodda ku eekowaan leeyahay macnaha iyo booskaaga waxa xil laga qaadanaa kulay mar labaad goomisde waxaan leenahay xayday khayr ugu rajayna daawadayaal oo ku maasantiin daawashada muuqaalkan waxa intaas nooga eeg ra'yiga dadweynaha aynu ka wareysanay shaqada joojinta lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan la socodsiinay anigoo ah Maxamed Cabdulcasiis Saciid Nuux inta ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan kaga tagi doonaa sidaas nabadgelyo.